kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada kaalmoy miidiya iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciidamada difaaca deegaanka ee ku sugan deegaanka shidan ee gobolka sanaag ayaa saa ka sameeyey howlgallo aad u ballaaran kuwaasoo ay ka fuliyeen inta u dhexaysa magaalada ceerigaabo iyo sidoo kale deegaanka shidan oo ah markaasi dhul istaraatiiji ah oo ay horay markaasi ciidamada somalilan dhaqdhaqaaqay ugu wadeen maalmihii ugu dambeeyey haddaba waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa iyo howlgallada ciidamada difaaca deegaanka ay wadaan iyo qorshaha markaasi laga leeyahay ma waxa ay ku wajahan yihiin magaalada ceerigaabo faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo inta tabintan aynu ku guda jirnana waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ciidamada maamulka waqooyi bari soomaaliya oo dhankooda howlgallo markaasi aad u xoogan wada islamarkaana u diyaar garoobaya weerar ka dhan ah magaalada ceerigaabo oo ay doonayaan inay la wareegaan ciidamada maamulka waqooyi bari hagaaga sida la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa xiisad ballaaran ay ka taagneed deegaano ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan deegaanada waqdariya shidan iyo sidoo kale yube taasoo u dhexaysay ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa difaaca deegaanka ciidamada difaaca deegaanka oo ka duulaya ka hortagga iskudayada maamulka somalilan uu qorsheynayo kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen maamulka somalilan inay ciidamo ku daabulaan deegaanada gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ciidanka difaaca deegaanka ayaa saaka ilaa iyo xalay waxay sameeyeen howlgallo aad u xoogan kuwaasoo ay doonayaan inay kaga hortagaan damaca somalilan waxaana howlgalladaasi ay ka sameeyeen nawaaxiga deegaanka shidan ilaa iyo sidoo kale duleedka magaalada ceerigaabo ayay ciidamada difaaca deegaanka ay tageen sida markaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aynu la hadalnay ay markaasi noo sheegeen dadka deegaanka waxay noo xaqiijiyeen inay arkayeen ciidamada difaaca deegaanka ee ka soo baxay shidan kuwaasoo howlgallo ka samaynaya duleedka deegaanka iyo sidoo kale nawaaxiga magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxaa la soo warinayaa ciidamada difaaca deegaanka in howlgalladan ay markaasi ujeeddadoodu tahay inay kaga hortagaan somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey markaasi waday howlgallo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu tilmaamay inay yihiin mid ciidamo aad u fara badan ay ugu daabulaysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo magaalada ceerigaabo ciidamada somalilan waxa ay tan iyo shalay markaasi ku daabulayeen ilaa iyo daraato ciidamo aad u fara badan oo kuwa maamulka somalilan iyo hub aad u culus waxaana lagu tilmaamay tallaabo somalilan ay ku doonayso inay weerar ballaaran ugu qaado deegaanada ku jira gacanta ciidamada difaaca deegaanka si ay markaasi ula wareegto deegaanada istaraatiijiga ah ee gobolka sanaag ee ay gacanta ku hayaan dadka deegaanka muddo dheerna somalilan markaasi ay ka hortaagnaayeen inay gudaha u soo gasho oo ay la wareegto ciidamada maamulka somalilan ee lagu daabulayo gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ayaa waxaa markaasi si weyn uga carooday dhankoodana dhaqdhaqaaqyo bilaabay ciidamada difaaca deegaanka waxayna dadka deegaanka ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ciidamada difaaca deegaanka ay samaynayaan ay yihiin kuwo aad u xoogan markii ugu horreysana ay arkayaan ciidamada difaaca deegaanka oo hub aad u culus keenay duleedka deegaanka shidan isla markaana howlgallo ballaaran ka wada deegaanada hoos yimaada shidan iyo sidoo kale duleedka magaalada ceerigaabo waxaa muuqata in labada dhinac mid kasta oo ka mid ah markaasi uu wado dadaale iyo diyaargarow dagaal oo uu doonayo inuu ku meelmariyo qorshihiisa iyo sidoo kale ajandayaashiisa ku aadan deegaanada ka maqan gacantiisa waxaana labada dhinac markaasi ay u muuqdaan inay hadda u sii dhowaanayaan dhinaca dagaalka ciidamada xaq u dirirka difaaca deegaanka ee ka soo jeeda beesha warsagale ayaa lagu tilmaamayaa inay gacanta ku dhigeen hub casri ah oo aad u culus islamarkaana dhowaan markaasi laga soo dejiyey dekadda magaalada boosaaso kaasoo lagu tilmaamay inay yihiin hub ciidamada difaaca deegaanka ay iyagu markaasi soo iibsadeen ayna doonayaan inay kaga hortagaan somalilan iyo damaceeda ku aadan isballaarinta oo ay ku tilmaameen mid aan markaasi sina loo aqbali karin laakiin dhinaca somalilan ayaa hub aad u culus dhankeeda waxa ay ku daabulaysaa deegaanada markaasi gobolka sanaag gaar ahaan magaala madaxda gobolka ceerigaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka somalilan tallaabo markaasi lagu tilmaamay in somalilan ay qaadatay go'aankii ugu dambeeye ee dagaal oo ay doonayso inay ku xaqiijiso joogitaankeeda gobolka sanaag iyo inay soo ceshato deegaanada gacanteeda ka maqan ee ciidanka xaqudirirka difaaca ay wakhtigan markaasi ka arrimiyaan deegaanadaas oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwo istaraatiiji ah marka loo fiiriyo waana deegaanka shidan oo hodan ku ah macdanta iyo dahabka islamarkaana ah deegaan buuraley ah
oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada xaq u dirirka difaaca deegaanka iyo deegaan xeebeedka waqdariya oo ah deegaan xeebeed istiraatiiji ah isla markaana haddii ciidamada difaaca deegaanka ay gacantooda ku sii jirta ay ka dhigan tahay inay markaasi heli karaan marino kala duwan oo ay u soo maraan saadka iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi agabka military ay u baahan yihiin ee muhiimka u ah xilli waxgaradka deegaanadaasi qaarkood ay dowladda federaalk Soomaaliya magaalada Muqdisho ugu yeertay halkaana ay kulamo ugu socdaan tallaabo markaasi loo qaatay inay tahay dowladda federaalk Soomaaliya oo qorsheynayso inay taageero xooggan la garab istaagto ciidamada xaq u dirirka difaaca deegaanka si loo soo gaabiyo cimriga jiritaanka maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland ee gobolka Sanaag. aragtidaada qaybta faallada ku dhiba sida aad u aragto yaa ku guulaysan doona loolanka gobolka Sanaag ma ciidamada difaaca deegaanka ayaa gebi ahaanba Somaliland ka saari doona gobolka mise Somaliland ayaa dib ugu soo laaban doonta deegaanada ka maqan gacanteeda hagaag markana dhinaca maamulka waqooyi bari Soomaaliya wararka naga soo gaaray waxa ay tilmaamayaan in ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay wadaan diyaargarow iyo dhaqdhaqaaqyo aad u culus muuqaalo iyo sawirro soo baxaya waxay muujinayaan ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo howlgalle iyo dhaqdhaqaaqyo markaasi ka wada deegaano aan ka fogeyn magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana lagu tilmaamayaa in ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay u diyaargaroobayaan duulaan ballaaran oo ka dhan ah magaalada Ceerigaabo sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ciidamadii ugu faraha badnaa ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa la diyaariyey sida markaasi xogaha ay nagu soo gaarayaan ku dhawaada 3500 oo askari oo ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa lagu diyaariyey meel aan ka fogeyn magaalada Ceerigaabo kuwaasoo u muuqda markaasi in loo diyaarinayo loona carbinayo sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen magaalada Ceerigaabo oo dhanka kale markaasi ciidamada difaaca deegaanka ay iyaguna doonayaan inay duulaankaasi qayb ka noqdaan oo weerar ay qorsheynayaan ciidamada waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqan iyo sidoo kale diyaargarowgan ay bilaabeen kadib markii ay heleen xogo ku saabsan in maamulka Somaliland hub iyo ciidamo aad u fara badan uu ku daabulayo magaalada Ceerigaabo si uu uga hortago weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa maamulka waqooyi bari Soomaaliya laakiin madaxda ugu sarreysa maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa la tilmaamaya inay qaateen go'aan kama dambaysa oo ay doonayaan inay ku soo gabagabeeyaan joogitaanka Somaliland ee magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo iyo guud ahaan gobolkaba waxaana ciidamadii ugu faraha badnaa lagu diyaarinayaa meelo aan ka fogeyn magaalada Ceerigaabo taasoo markaasi u muuqata in dhowaan magaalada Ceerigaabo ay martigelin doonto dagaal ballaaran oo u dhexeeya Somaliland waqooyi bari Soomaaliya iyo ciidamada difaaca deegaanka oo dhinaca haddii maamulka waqooyi bari Soomaaliya uu ku guulaysto in magaalada Ceerigaabo gacanta uu ku soo dhigo waxay ka dhigan tahay in markaasi maamulka waqooyi bari Soomaaliya uu hirgeliyey mid ka mid ah riyooyinkiisii ahaa in magaalada madaxda gobolka Sanaag uu soo qabto isla markaana gacanta ku soo dhigo Somaliland uu meeshaasi ka saaro hadda xoguhu waxay tilmaamayaan in markaasi saraakiishii ugu sarreysay ciidamada maamulka waqooyi bari ay ka baxeen magaalada Ceerigaabo ayna gaareen fariisimo markaasi ku yaala duleedka magaalada Ceerigaabo oo lagu diyaarinayo ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya kuwa madaniga ee deegaanka oo iyagu markaasi isku diyaarinaya weerar kama dambaysa oo Somaliland ka dhan ah sidii looga saari lahaa magaalada Ceerigaabo guud ahaan wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa aragtidaada qaybta faallada ku dhiba sida aad u aragto suuragal ma tahay maamulka waqooyi bari Soomaaliya waqtiga soo aadan uu gacanta ku dhiga magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ha ilmaamin mar kale inaad muuqaalkan like saarto si meel dheer